dareenkan waa mid si toos ah uga socotaan telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland shacabweynaha caasimadda Hargeysa ayaa dareenka ku muujinaya gudoomiyaha golaha wakiilada cusub ee la doortay Cabdirasaaq Khaliif ka waran adiga dareenka ka waramaya bismillaahir rahmaanir rahiim dareenka shacabka ayaan ka waran dareenkaaga iyo gudoomiyaha golaha wakiilada cusub adiga si toos ah telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland laga daawanayo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wa bihi nastaciinu calaa umuuri diin wa diin maanta farxad bay noo tahay guul baanu soo hoynay haddaanu nahay taageerayaashii isbahaysiga xisbiyada mucaaradka ah ciddii aan la doonaynay aanu diyaarinay ee ku habboonayd golaha baarlamaanka waa la hubsannay alxamdulillahi rabbil caalamiin dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan baa guulaysatay muranka iyo istiitiidka waxa iskale maxaan ku dhahay dimuqraadiyadda warbahashu foolkulula maanta wada umulay waxaanu nahay Soomaaliland runtii gayiga Soomaalida marka la eego shanta gobol ee Geeska Afrika kaga nooshahay halkanay guushii taala xaqiiqdii labadan maarta walaalaha tirtamayay Cabdirasaaq Khaliif baa ku guulaystay waxaanay noogsoonay isaga laftiisa hawl yar uma taalo maartay guurtidii doorashadeedii madaxweynaha doorashadiisii dastuurka la furo iyo waliba waxa u taala in maxaan ku idhaahdaa urur siyaasadeedii la furo midna hawl yar uma taalo waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku guulaystay oo noqday halyeeyigii geesigii Geeska Afrika ee xitaa xisbigiisii talada hayay saaxadda kaga bixi gaaray hadda madaxa dhigtay iyo qoorta waxaan leeyahay Muuse sidig bayno curato saaka dawlad baynu nahay saraka caasin ma saraka halka waxaan ka salaaminaa horta marka hore madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha ku-xigeenka iyo shir guddoonka imika la doortay cusub ee Cabdirasaaq gudoomiyaha ka yahay waxaan leenahay horta marka hore guul baa gaadhay guusha Soomaaliland baa wada gaadhay Cabdirasaaq oo guri mu guulaysan faratoon qudhe mu guuldarsan laakiin dhammaan shacabka Soomaaliland ayaa horta guusha wada gaadhay macaariyo maxaafidba way waxa astaan u tahay sida dawladda hoggaamiyaha madaxweyne Muuse Biixi ay uga madax bannaan tahay firagelinta iyo musuqmaasuqa dhammaantood uga madax bannaan tahay cabdirasaaq arrintan doorashadii hore iyo dimuqraadiyadda cad ee Muuse ku socdo ayay u tahay wax cad oo muuqda u tahay daliila waxaan leenahay marka waxaan ku leenahay annaga hadda waxaan marka hore taageerayaashii fartoob baan nahay maadaama taageerayaashii fartoob nahay waxaanu aqbalnay natiijada ka soo baxday golaha shacabka cusub ayaanu aqbalnay Cabdirasaaq waxaan leenahay kun jeer hambalyo midna waanu ka sugaynaa Cabdirasaaq khudbadiisa halkii ku jirayna waanu ka sugaynaa inuu rumeeyo khudbadiisa halkii ku jiray inuu rumeeyana waanu ka sugaynaa halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi doorasho xor iyo xalaal ah ayuu qabtay waxaan halkan u soo jeedinayaa salaadiinta ka hordhacaya doorashooyinka oo lahaa madaxweynuhu wax u iibsaday waxba sidana doorashadii hore la galay waad ogeedeen intuu helay xildhibaan iminkana waad ogtay sidoo lagu kala helay sidoo uu hambaliyeeyay waxaan taageersanaa taageerayaasha waxaan faratoon waxaan u hambaliyay iminka guushna ka raacday waan u mahad celinay ilaahay ayaan u mahad celinay waxaanan ku hambaliyaynayaa nin kasta ka maanta golaab guurnimada ku soo baxa iyo ka tagaaba inay mid walba Soomaaliland wada joogo waxaynu halgamaynayna inuu golaha Soomaaliland u nahaa inuu Hargeysa u nahaa dabadda markaynu joognay dabadda joognay iyo markaynu gudaha joogno meeshaynu u bugnay inay Hargeysa u nahayd iyo wadanka Soomaaliland aynu ku noolaano aynu ku dhaqanno aynu ku dhisano inay intaas u nahayn bay wada bugnay calanka Soomaaliland oo aad baan u qiimeeynaya waxa weeye Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka rajaynayaa kuwa diinta iyo dalka u shaqeeyayna la ka dhigo toosaad nooga daawanaysaan telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ku sugannahay agagaarka xarunta baarlamaanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka dhacday doorashadu waxaana aan dareenkooga su'aalo ku weydiinay bulshadii u dhaweyd aqalka golaha baarlamaanka waxaana si toos ah imkadii ku wareejin doona dabaaldegyada gobolada kale ee Soomaaliland sida tooska uga socda Xamse Qurbaani warbaahinta qaranka Soomaaliland caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa